wariye cali aadan muumin oo ka tirsan warbaahinta goobjoog media group ayaa saaka lagu xiray xarunta CID ee magaalada Muqdisho. saacado ka hor xarigiisa ayaa waxaa soo gaartay warqad loogu yeerayo goobtaasi, laakiin markii uu tagay ayaa lagu wargeliyay inuu xiran yahay wariye cali aadan muumin. inkastoo ay heedda qabatay wariyaha aysan sababta xarigiisa la wadaagin warbaahinta uu shaqeynayay, haddana wararka qaar ayaa sheegaya in loo haysto qoraal imtixaanka la xiriira oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ku leeyahay. ehelada wariye cali aadan muumin oo xabsiga ku booqday waxay sheegeen in loo sheegay inay soo dacweysay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya, isla markaana maxkamad la soo taagi doono maalinta Arbacada ah oo berita ah. goobjoog media group ayaa waxay ka walaacsan tahay sida ay sheegeen xaaladda wariye cali aadan muumin, waxayna codsanaysaa in hay'adda CID ay la wadaagto sababta rasmiga ah ee loo xiray. warqadan loogu yeeray wariye cali aadan muumin ayaa waxay u qorastay tan ku socota cali aadan muumin og agaasimaha idaacadda goobjoog, og madaxda gobolka Banaadir. waxaa laga doonayaa shakhsiga warqadani ku socoto inuu yimaado qaybta baarista dambiyada CID-da 9 subaxnimo, taariikhduna ay tahay 28 bisha Shanaad 2019 si wax looga weydiiyo cabasho la keenay qaybta baarista dambiyada ee CID-da. sidaas darteed waxaa laga dalbanayaa inaad si degdeg ah ku soo gaarto. wariye cali aadan muumin ayaa waxa uu kamid yahay wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho, waxaana si weyn oo wuxuu qoraa bartiisa Facebook oo dhaliilo ugu soo jeeda dowladda federaalka Soomaaliya. inta badan wariyaasha ayaa waxay cambaariyeen xariga wariye cali aadan muumin. geesta kale warbaahintii oo ka howlgalaya goobjoog ayaa waxay sheegeen in adigu walaacsan yihiin xaaladda wariye cali aadan muumin oo ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay gacanta ku dhigan gaar laanta dambaarista CID-da, waxaana loo sheegay inay dacwad ka keentay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. warmaha